بسم الله الرحمن الرحيم صباح wanaagsan daawadayaal qodobada wararka TV saakidin hay waxa kamida booliiska Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay qaraxyo ka dhacay Muqdisho iyo howlgallada ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen Muqdisho awood dhimis lagu sameeyay taliyayaasha saldhigyada booliiska Muqdisho wasiir goodax oo ay suurtagal tahay in xilka qaadis lagu sameeyo wasiir ka tirsan xukuumadda Qayro oo sheegay in doorasho aanu ka dhici doonin Muqdisho iyo Hargeysa xisbiga wadani oo sheegay in Soomaaliland ay ka been abuurtay safiirka Ingiriiska u fadhiyay Soomaaliya wararka dibadda wararka TV saakidin hay waxa kamida dawladda Iran oo sheegtay inay diyaar u tahay inay dagaal la gasho cadawgeeda iyo Sacuudi Carabiya oo malaayiin dollar ugu deeqay militariga Suudaan daawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan haddii aad ka mid tahay daawadayaasheena ku cusub barta YouTube-ka fadlan rukumo barteena oo subscribe dheh booliiska Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo oo ciidamada booliiska ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho kuwaas oo lagu qabtay rag qaraxyo ka geystay magaalada Muqdisho taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Sakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay inay gacanta ku soo dhigeen laba ruux oo sida ay sheegtay bambaanooyin ku weeraray waaxda Taleex ee degmada Hodan iyo suuqa Bakaaraha qaybta xigta degmada Hurwadaag oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada ammaanka dawladda Soomaaliya taliye Sakiya oo war qoraal ah soo saartay ayaa waxa ay sheegtay inaysan jirin cid wax ku noqotay labadaasi bambaano oo raggaasi ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku weerareen xaafado ka tirsan degmada Hodan iyo degmada Hurwadaag ee gobolka Banaadir ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku soo dhigay dhagarqabayaal bambaanooyin ku tuuray xarun ciidamada ammaanka ay ku leeyihiin waaxda Taleex ee degmada Hodan iyo sidoo kale fariisin ciidanka ammaanka ay ku leeyihiin suuqa Bakaaraha ee gobolka Banaadir iyadoo qaraxyadaasi aan wax khasaaraha geysan siday hadalka u dhigtay taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliya balse ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen dhagarqabayaashii bambaanooyinkaasi ku tuuray ciidamada laamaha ammaanka dawladda Soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyay sheegay inay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo dilal iyo qaraxyo ka geystay magaalada Muqdisho balse wali ma jirto cid ay soo bandhigeen ciidamada booliiska iyo cid loo maxkamadeeyay falalka amni darri ee maalmihii u dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho waxa awood dhimis lagu sameeyay taliyayaasha booliiska ee saldhigyada magaalada Muqdisho shabakada wararka TV ayaa baaritaan ay sameysay ku ogaatay in si weyn hoos loo dhigay awoodda taliyayaasha ciidamada booliiska Soomaaliya ee saldhigyada degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo dhawaan la magacaabay shabakada wararka TV ayaa la hadashay ugu yaraan 7 ka mid ah taliyayaasha waxaana mid kasta uu cadeeyay in uusan lahayn awood uu wax ku maamulo sidii markii hore ay ahayd oo ay ku maamuli jireen ammaanka degmooyinkooda sidoo kalena ay ku amri jireen ciidamada ka howlgala degmada waxa la joojiyay dhammaan kormeerkii baraha control ee degmooyinkaasi ku yaalay waxa kaloo laga joojiyay inay soo daayaan ama ay damiintaan dadka ay yaqaanaan ee baraha control oo ay degmooyinka ay maamulaan ku yaala sidoo kale waxa lagu wargeliyay in aysan maamulin isla markaana aysan amar siin karin ciidamada ku sugan baraha control ee degmooyinka taliyayaasha ayaa maamulo oo kaliya ciidamada ku sugan xarumaha degmooyinka iyo saldhigga booliiska ee degmada halkii markii hore ay ka maamuli jireen dhammaan degmada gudaheeda ciidamada ku sugan ciidamada booliiska ee ku sugan baraha controlka ayaa waxa ay ka amar qaataan taliyayaasha rugahaasi oo go'aan ka gaara xaalad kasta isla markaana waxay amraan 12 askari wixii ka dheeraad ahna waxay la aadaan oo ay si toos ah ula macaamilaan taliyaha qaybta booliiska gobolka Banaadir iyo kuwa kale ee qaybaha maamula lama oga wixii sababay arrintan mana jirto wax faahfaahin ah oo ay bixiyaan taliyayaasha aan la hadalnay balse rag dhalinyaro ah ayaa dhawaan loo magacaabay xilalka ay hayaan waxaana intooda badan ay ahaayeen taliyayaasha ciidamada NISA ee degmooyinka gobolka Banaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa wajahaya culays ah in xilka qaadis lagu sameeyo wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa wajahaya cadaadis xoog leh oo kaga imaanaya mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ila wareedyo ku dhow wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa shabakada wararka TV u sheegay in wasiirku uu wajahayo cadaadis aan yareyn iyo su'aalo badan oo ay weydiinayaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya sidoo kale wasiirka ayaa waxa haysata eedeemo waaweyn
oo gaf ah isla markaana ay soo gudbiyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland kuwaasi oo dalbaday in xilka qaadis lagu sameeyo wasiir Goodax oo ay sheegeen in aysan la shaqayn karin isla markaana uu laba jeer u gafay bil gudaheeda. wasiir Goodax ayaa laba jeer looga yeeray xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaana la weydiiyay halka uu ka keenay fashil ku yimid imtixaanka Puntland wuxuuna sheegay in uu helay xog qaldan xukuumadda Soomaaliya ay ku amartay wasiirka in uu raaligelin ka bixiyo hadalkii ahaa waxa fashilmay imtixaankii ay u fadhiisteen ardayda Puntland taa oo sababtay in raaligelin degdeg ah uu bixiyo wasiirka waxbarashada. warar ay heshay shabakada wararka TV ayaa sheegay in dhawaan xilka laga qaadi doono wasiirka waxbarashada Soomaaliya. xilka qaadista wasiirka ayaa la filayaa in lagu aadiyo marka uu soo dhamaado imtixaanka sidoo kalena waxa laga yaabaa in lagu aadiyo marka uu ku dhawaaqo natiijada imtixaanka oo la qaadi doono 27 bishan. wasiirkii hore wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan ayaa sidaan oo kale la aaminsan yahay in uu sababsaday hadal uu jeediyay oo ku saabsanaa tayada waxbarashada Soomaaliya waxaana la filayaa in wasiir Goodaxna uu sababsado hadaladii uu jeediyay ee ku aadanaa Puntland iyo qalqalka ka jira imtixaanka Soomaaliya ee sanad dugsiyeedka 2018-2019 kaasoo dhawaan wasaaraddu ay sheegtay in uu fashilmay kadib markii la bixiyay qash ku saabsan imtixaanka. wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in doorasho qof iyo cod ah aanu ka dhici doonin Muqdisho iyo Somaliland. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sheegay in magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyo deegaanada Somaliland aysan ka dhacaynin doorasho ilaa laga xaliyo cabashooyin jira sidoo hadalka u dhigay. xilli uu goobjoog ka ahaa kulan baarlamaanka ay yeesheen ayuu sheegay in dadka jooga deegaanada Somaliland aysan ka qayb gali doonin doorasho haddii aan alla xaalad degdeg ah keenin sidoo hadalka u dhigay. dadka ku nool deegaanada Somaliland ayuu sheegay in laga shaqeeyo sidii ay ku imaan lahaayeen maadaama wali ay aaminsan yihiin inay ka go'een Soomaaliya inteeda kale. magaalada Muqdisho ayuu sheegay in maqaamkeeda aan wali go'aan laga gaarin sidaa daraadeedna aysan fududeyn in doorasho ay ka dhacdo wuxuuna isweydiiyay waxa ay noqon karto matalaada ay yeelanayaan shacabka gobolka Banaadir. wasiirka oo ka hor hadlayay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya. xisbiga wadani oo ka mid ah asxaabta siyaasadeed ee ka jira Somaliland ayaa sheegay in Somaliland ay ka been abuurtay safiirka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya kaasoo dhawaan socdaal ku tagay magaalada Hargeysa. xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa markii ugu horeysay sheegay in war been abuur ah laga sheegay safiirka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya ka oo dhawaan safar ku tagay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. wadani ayaa sheegay in xukuumadda Muuse Biixi ay safiirka u sheegtay intii uu ku sugnaa Hargeysa in la xaliyay khilaafka ka taagan qabsoomidda doorashooyinka oo ilaa iyo hadda ay isku mari la'yihiin. gudoomiyaha kumeel gaarka ee xisbiga wadani xildhibaan Cabdiqaadir Jirde oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in safiirka Ingiriiska ee tagay Hargeysa la siiyay warar been abuur ah oo ku saabsan in la xaliyay khilaafkii ka taagnaa qabsoomidda doorashooyinka Somaliland. khilaafka xisbiyada u dhaxeeya ee ku aadan doorashooyinka Somaliland ayaa ah mid inta badan soo noqnoqday oo ilaa iyo hadda laga gaarin is-afgarad buuxa. wararka dibadda wararka TV saaka daawada idin hayana waxa kamid ah dawladda Iran ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay dagaal la gasho cadawgeeda sida ay hadalka u dhigtay maalin uun kadib markii rasaas lagu furay agagaarka aagga cagaaran ee magaalada Baghdad halkaas oo u dhow safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay dalka Ciraaq ayaa abaanduulaha ciidamada Iran Ali Hajulu uu sheegay in Mareykanka iyo cadawga Iran aysan awood u lahayn in ay dalkooda ka adkaadaan. wuxuu carabka ku adkeeyay in haatan uu Mareykanku uusan lahayn awood military uu ku weeraro Iran arintaasi oo ay sidoo kale toddobaadkii hore ay ka dhiidhiyeen ciidamada kacaanka Islaamka ee Iran. abaanduulaha ayaa sidoo kale sheegay in waqooyiga dalka uu si adag isugu diyaarinayo weerar kasta oo kaga yimaado cadawga Iran. hadalkan ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump uu soo saaray digniin ku socoto Iran isagoo sheegay in haddii labada dal uu dagaal ka dhex qarxo ay burburi doonto dawladda Iran sida uu hadalka u dhigay. dawladda Sacuudi Carabiya ayaa malaayiin dollar ugu deeqday militariga Suudaan. dawladda Sacuudiga ayaa sheegtay in bangiga dhexe ee Suudaan ay ku shubtay 250 milyan oo dollar arintaas oo qayb ka ah
gacan qabasho ay u fidinayso dalkaasi oo haysato deganaansho la'aan dhaqaale iyo mid siyaasadeed. hadiyadan iyo mid la mid ah oo uga timid dalka Imaaraadka ayaa Suudaan ka caawin doonta wax ka qabashada qayb ka mid ah mushaakilaadka dhaqaale ee haysta, balse waxba kaba tari doonto waxyaabihii sababay dhaqaale xumada dalkaasi. Suudaan ayaa dhaqaale xumo haysataa tan iyo sanadkii 2011 markaasoo Suudaanta koonfureed ay raaceen inta badan ceelashii shidaalka ee dhaqaalaha dalkaasi uu ku tiirsanaa, waxaana dhaqaale xumada dalka Suudaan uga sii dartay in madaxweynihii hore ee Suudaan Umar Hassan al-Bashir uu dhaqaalihii dalka u isticmaalay wax kasta oo ku cimri dheereysan kara xilka uu hayay. madaxweyne Bashir oo hadda xiran ayaa kumanaan askari u diray dagaalka Yemen si ay ugu garab dagaalamaan xulafada uu Sacuudigu hogaaminayo, isagoo arintaasi ku bedeshay lacag dollar ah oo ay siiyeen wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen wararka TV saaka waa naga inta